السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي السلام يا جبي هانتين به ميل والبا وعاد شوكتان أصحابتي ذا قالقة ميل والبا شوكتان وادي السلام يا ومرك على برنامج كله أو كوبان أورنتي عن ربع نمبر ديرته كسارة وحالي قدام بي سوماليا حتى كسر أسبوع عضي ولايف سيشن كوبان أورنتي أنا هاري وقرشينين إن سوق على أورنتي أيسان هاري يوتشرنين لكن فاينالي أنكو أنسى إن سوق له ما دام عدور قرار دادر تنسوق قري أصحابتي ويرادر حسين وبل نلو ذاك qoraalku nagu adag yahay marka la leeyahay oo kale Soomaalidu waa oral society dad qoritaanka ama qoraalka jecel ma aha waa dad runtii jecel in marka ay dhageystaan ama ay daawadaan qofka wax soo qoraya sidaa daraadeed ayaan marka waxaan ku qasbanaaday bal inaan wax yar soo galo oo live kooban kan ugu bato ilaa 15 daqiiqo iyo wax la mid ah ama ka sii yar ayaan ku jiri doonaa waxaan kaga hadli doonaa runtii dhowr qodob arrimihii shirki ka socday magaalada Muqdisho oo runtii ay ku soo kordhay xaalado runtii aad xasaasi u ah wasiirkii ka tirsanaa maamulkii Axmed Madoobe ee Jubbaland la yiri uu soo dhiibaya xaaladiisii xaggay maraysaa maxaa ka soo cusboonaaday iyo sidoo kale qoraal aan shala baahiyay oo ku saabsanaa in gudoomiye Mursal uu ka shaqeynayo in madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanka markaa loogu daro 2 sano extension oo ayadana runtii ay warbixino culus ay ka soo baxeen waa live session kooban oo 3 qodob oo kaliya ayaan ka hadli doonaa soo dhawaada asxaabta meel walba joogtaan waxaan si sharaf leh ka codsan lahaa inaad gaarsiisaan walaalaha kale Soomaaliyeed mabaadiida iyo fikirka Soomaaliyeed ee aynu baahinayno nagala siman si ay iyaguna inoo daawadaan ama ay inoo arkaan barnaamijka aynu maanta halkan ku hayno soo dhawaada ayaan markaas idin leeyahay haddii aan runtii guda galo arrinta ka socota magaalada Muqdisho shirkii ay ku baaqday dowladda dhexe ee Soomaaliya oo khaasatan uu madaxweynaha qaranku ku baaqay oo la rabay in 22kii oo isniintii ahayd iyo maantayto uu soo gabagaboobo ayaan ilaa haddadan aysan marnaba soo xaadirin labadii hogaamiye kooxeed Axmed Madoobe iyo waliba Dani oo la doonayay inay shirka ka soo qayb galaan oo casuuna ayaan marnaba imaanin waxaa laga yaabaa inaad ku xirnayd live-kii ka horreeyay oo aan maalinkii ay berriyo kala ahayd beri dambe oo kale maalinkii ahayd oo Saturday ay ahayd ayaan idin sheegay habeen aan idin lahaa dhunta ayaa xiran ma dhici doonto in Axmed Madoobe iyo Dani ay shirka imaadaan hadday yimaadaanna wax dambe kama hadlayso sanadii laga yaabaa inaan xasuusanin laakiin hadalkan idiri ayaan doonayaa inaan idin xasuusiyo waxyaalii marka aan ku dhisayay waxyaalaha ugu badnaa waxay ahaayeen arrintii ciidanka cabsidii haysay qodobadii ay wateen iyo wixii la midka ahaa ayaan arkayay inaysan marnaba meesha aysan ka shaqaynaynin ayaguna aysan ahayn markaa dad kalsooni iyo fikir Soomaalinimo wata oo inta hor fariista dadka kale ee Soomaaliyeed oo ay fikirka ku kala duwan yihiin inaysan waxba kala naqaashi karin ayaan arkay taasa marka aas u ahayd waxyaalo ugu badnaa oo aan runtii sheegay inaysan ragga iyaga aysan shirka u maadoonin waxaan rabaa markii aan haddana qaybtii labaad aan runtii halkan ka ambaqaadno oo aan bal isku dayo inaan wixii aan kala socdo aan idin sheego waxaa jira xogo runtii madax bannaan oo dhawaan ka soo baxaya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in amar aan la shaacinin lagu la saaray Axmed Madoobe iyo Dani oo aysan magaalada ka bixi karin hadalkaasi waa xaqiiqo maalmihii la soo dhaafay aad ayuu xooganaa laakiin caawa ayaa la soo sheegay in hadalkaasi uu yahay hadal dhab ah oo aysan ka bixi karin beesha caalamka ayaa maal dhawta sheegtay inaysan cid bixi kartaa jirinin inta agreementiga la saxiixayo laakiin hadalkaasi hadal maldahan ayuu ahaa muhiimadu hadalku wuxuu ahaa in Axmed Madoobe iyo Dani aysan magaalada Muqdisho ka bixi dooninin hatta haddii agreementiga saxiixan maxaa sababay ayaan iri arrintii waxaa la ii xaqiijiyay in hatta haddii agreementigan ay saxiixan ay tagaan Puntland iyo meesha loo yaqaano Kismaayo ay ka bixi karayaan heshiiska sidii ay uga baxeen heshiiskii hore ee 17 September inta saxiixeen ay tageen ay ka baxeen sidoo kale kii 16kii maxaa la yiraahdaa February intay saxiixeen oo raalli ka noqdeen haddana ay ka baxeen waxaa la ii xaqiijiyay inaysan ahayn dad marka lagu kalsoonaan karo agreementiga lala galo isla markaana dawladda iyo beesha caalamku ay ku heshiiyeen in labadan shakhsi la hayo inta doorasho ay ka dhacayso oo inta laga gaarayo go'aan ka duwan go'aankaasi oo dalkan hore loogu wadi karo haddii marka ay saxiixaan maxaa dhacaya ayaan iri waxaa la yiraahdaa ay saxiixaan heshiiskani oo ay ogolaadaan wali waa la sii hayn doonaa ergada iyo waxaa la diri doonaa waxa loo yaqaano guddoonka labada baarlamaanka ii sheeg maxaa la yiraahdaa midka dawladda
guddiga doorashada iyo midka maamulada ayaa deegaanadii loo diri doonaa isla markaana xildhibaanadii ayaa la soo xuli doonaa xildhibaanadaasi markay magaalada muqdisho ku soo laabtaan oo ay doortaan guddoonka baarlamaanka marka ay free yihiin baa la yidhi warbixintaani waa warbixin runtii aan is oran karo ilaa iyo 100% oo warbixin lagu kalsoonaan karo dadka iga soo gaarayso iyo source-ka ay ka soo baxayso waa dad runtii aan marar badan tijaabiyey xogahooda iyo sida ay wax igu sheegaan sida ay u shaqeynayaan taa waa haddii ay markaas saxiixan waaye haddii ay saxiixi waayaan marka maxaa ku dhacaya haddii ay saxiixi waayaan alternative badan ayaa jira oo taasna dib ayaan markaa ka soo sheegi doonaa warbixintan waxay leedahay nimankan odayaasha ah runtii beesha caalamka ayaa maalmahan oo dhan ka daba wareeganaysay waa lala fariistay waa lala hadlay maxaa doonaysaan ayaa la yidhi hadalkoodii hal eray bas ayuu ku soo koobnaaday waxay yidhaahdeen waxaan doonaynaa in maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka haro doorashada marka ayaan doorasho ka qaybgelina ayay yidhaahdeen arrinta ayadaa waxay noqotay arrin runtii aan la filaynin arrin beesha caalamku aysan madaxweynaha ku celin karinin laakiin madaxweynaha la gaarsiiyey ayay noqotay madaxweynuhu ha ka haro doorashada option way noqon weyda waxay damceen inay beesha caalamka ay arrintaa ay ka waaniyaan waxay damceen inay beesha caalamka arrintaa ay kala hadlaan laakiin arrintaa ayadoo dhanba way shaqayn weyday sidaa ayayna u istaagtay waxayna ku soo go'doomeen inay yidhaahdaan ii sheeg waxaa la yidhaahdo may gelina doorasho uu farmaajo ku jiro waxay kaloo warbixintaanu ay xaqiijinaysaa in maalinkii aan u malaynaya inay jamcada ahayd oo ay dowladdu bilowday in gobolka Gedo laga dejiyo ciidamo uu Axmed Madoobe isku day inuu baxo ilaa iyo maanta laga hor taagan yahay inuu baxo si cad loogu sheegay maanta ugu dambeyntii inuusan bixi karin ilaa iyo amar dambe looma sheegin cidda haysata laakiin waxaa si cad loogu sheegay inuusan marnaba bixi karin waana sababtii waxaa la yidhi loo xiray garoonka iyo aagaga ay ka degan yihiin magaalada muqdisho oo dhan markii arrintaa ay dhacday ayay waxay go'aansadeen inay markaasi ay sameeyaan shir kale oo shirka dowladdu ay dhigtay ay ka garab furaan oo ay markaa doonaan inay carqaladeeyaan shirka ay dowladdu ay maxaa la yidhaahdaa ay isugu yeertay nimankii la baxay badbaado qaran ayaa caawa maanta galimkii dambe ay idhaahdee markii ay ka tahay xagga Soomaaliya ayay isku yimaadeen waxayna hoosta ka xariiqeen inay furaan shir kale oo loogu yeeray shirka go'aanka looga gaarayo arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya waxay yiraahdeen madaxweynaha ma aqoonsanin ma yeeleno maana aaminsanin sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa annagu inaynu go'aan ka gaarno cidda doorashada iyo halka doorashada u socota annaga go'aan gaarin ay yiraahdeen waa Cabdi Xaashi waa Dani waa Axmed Madoobe waa Shariif Sheekh Axmed waa professorka sawiradooda meelaha lagu wadwaday oo ayadoo hordhaca ayay soo galiyeen meelaha shirkaasi ayaa dowladda Soomaaliya ay si adag uga digtay oo loo diray dad saraakiil ah oo xagga dowladda ka socda waxaa la yiri magaalada Muqdisho laguma qaban karayo shir doorasho looga hadlayo oo dowladda Soomaaliya aysan ka warqabin laguma qaban karo mana qaban kartaan ayaa la yiri haddii aad doonaysaan shirka soo qayb gashaan waad ka soo qayb geli kartaan haddii aad shirar kale oo gooni aad doonaysaan aad gashaan waad geli kartaan laakiin shir arrimo doorasho looga hadlayo oo midkaan wadno ku garab furan oo opposite ku ah oo masiir doorasho looga hadlay magaalada Muqdisho cid ku qaban karta malaha ayaa la yiri si adag ayaa looga digay ayaa la yiri caawa walina waxaa la yiri way ku dhaga adeegayaan oo waxay isku dayaan inay arrintaasi qabtaan oo ay isku dayaan ay yiraahdaan anaga qabanayna arrintaasna warbixintu way ku jirtaa nimankii beesha caalamka ahaa ayaa waxay damceen ayaguna inay arrintaa kala hadlaan laakiin markii ay ka diideen nimankii European Unionka caawa si toos ah ayay uga baxeen wada hadalkii oo way ka tageen waxaa ku soo haray kaliya waa dowladda Mareykanka iyo dad kale oo ayaguna dowlado kale oo ayagana reer galbeed laakiin European Unionkii iyo madaxii European Unionka si cad ayay uga baxeen caawa meesha waxayna ku tilmaameen Axmed Madoobe iyo Dani laba shakhsi oo danta Soomaaliya ka hormarinaya dantooda ayay ku tilmaameen wayna isaga tageen maxaa marka meesha ka soo baxay waxa weeye haddii shirkan ay sheegayaan oo ay doonayaan inay dowladda ay garab furaan maxaa ku dhici karaya waxaa la filayaa inuu shirkaasi ay ka soo bixi karto wixii ka soo baxay mudaharaadkii 19kii maxaa la yiraahdaa February lagu qabtay magaalada Muqdisho oo aad ogeedeen wixii ka dhacay ayaa laga yaabaa inay ka soo dhabaxaan waxaa laga yaabaa inay dowladdu cudud ciidan iyo awood ay u isticmaasho shirka noocaay oo kala inuu qabsamo waxayna la mid tahay inqilaab lagu sameynayo dowladda in dowladda dad aan xil haynin Sheekh Shariif oo xil haynin maxaa la yiraahdaa Cabdi Xaashi Axmed Madoobe iyo dad aan awood u lahayn inay dowladda Soomaaliya ay ka garab furaan arrinta ayada waxay u muuqataa inqilaab
dowladuna sida la sheegay way diiday laakiin haddii ay furaan waxaa ka imaan doonta consequence ayay leeyihiin dadka runtii arrimahan aan ka soo xiganayo waana arrin caawa galinkii dambe si adag looga hadalhayo siyaasadda Soomaaliya intaas waa inta aan islahay waxay hadda ka cusub yihiin magaalada Muqdisho waxaan rabaa markaa idin xaqiijiyo inaysan jiri doonin wax shir Axmed Madoobe iyo Dani ay ka soo qayb galaan doorasho la filayo oo halka ka soo baxaysa rajada laga leeyahay aad ayay u yartahay sidaan hore ugu sheegana mar walba oo la fariisto oo la isku soo damco in arrimaha laga hadlo waa la sii kala fogeeyaa waayo mar walba waxa la engage garaya waxa la soo proposal garaya waxa loo yaqaan shuruudo aan la xalin karin shir walba wuxuu la yimaadaa shuruudo aan la xalin karin mar dhow waxaad arkaysaan ayagoo ku haya waa nala weeraray iyo waa nala diiday in magaalada aan ka baxno seen doorasho u galnaa mar walba tilaabo ayay ku darayaan oo ayagu ay sameynayaan isla markaana ay ka dhigayaan caqabad doorashada hortaagan waan waxa ayagu ay markaa sameynayaan taa waa inta ayada ah arrintii kale oo qanaalkayd aan maalin horeeto idinla wadaagay ku saabsanayd mursal waxa ayadana xogtaasi ay tilmaamaysaa in gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka ay maalmihii la soo dhaafay ay si adag uga caroodeen waxyaalaha ay Dani Axmed Madoobe ay ku dhaqmayaan hadallada iyo waliba sida doorashada loo isbaaraystay niman marka kamida gudiyada baarlamaanka ayaa is arursaday isla markaana waxay u tageen gudoonka baarlamaanka waxay ku yiraahdeen waxaan doonaynaa dalka sida ugu jiraan badbaadino annaga maxaa la yiraahdaa legislationkii annaga sharci dejintii dalka annagu inaga aasma madaxweynaha annaga dhalnay gudoonka baarlamaanka annaga dhalnay waxaan annaga sameynay waxaan doonaynaa inaynu arrintan aynu si adag uga farcilno ay yiraahdeen mursal soo dhaweyntiisii si adag ayuu u qaatay uu ku raacay wuuna la qaatay xildhibaanada waxaa lagu qiyaasay tiradooda ilaa 196 xildhibaan ayaa mataqaanaa la yiri way yihiin waxa arkaya ayaa la yiri wasiir Khadiijo iyo xildhibaano kale ayaa si adag arrintaas uga shaqeynaya waxay yiraahdeen marka waa inaan extension 2 sano aan ku darno waa inaan soo celino Xalima Yirisay waa inaan siino 1 yearkii codsatay oo doorashadii one man one vote ka lagu qabanayay iyo waa inaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha aan ugu darnaa waqti si marka arrimaha dhiman ee dalka socda loo dhameystiro arrinta ayda mursal wuu aqbalay laakiin waxa la yiri maantayto ayaa waxa ka soo baxaya warbixin kale oo sheegaysa in madaxweynuhu uu yiri cagta loo dhigo arrinta ayda ilaa amar dambe aniga hala isugo laakiin waxay u muuqataa in madaxweynuhu iyo gudoonka baarlamaanka iyo xildhibaanadu aysan ahayn dad arrinta ka wada shaqeynaya laakiin ay tahay dad caraysan oo xildhibaanada ah oo arrinta ka carooday oo ayagu markaa is abaabulay oo geeskood u gadoodsan lagana yaabo inay kala fadhi degdeg ah yeeshaan oo ay shaabad u dhuftaan madaxweynaha iyo waxa loo yaqaan xukuumadda una yeeraan Xalima Yirisay oo la weydiiyo su'aalo isla markaana haddii ay tiraahdo waan ku qaban karaa way yar ayadana markaa aqoonsi kale la siiyo arrinta marka ayaduna maanta waxa la yiri madaxweynaha ayaa yiri cagta u dhiga laakiin wali si guuxa oo xoog leh ayay u socotaa maalmaha soo socda ayaana laga yaabaa inay runtii ay banaanka u soo baxdo arrinta ugu dambaysa oo aan rabo inaan barnaamijkan yarka kooban aan ku soo gudbiyo ayaa wuxuu yahay Cabdirashiid Janan oo aad taqaanaan oo ahaa gacantii midige Axmed Madoobe ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray wada hadal ay la galeen siyaasiyiin gobolka Gedo ka soo jeeda oo ku sugan gobolka Gedo iyo saraakiil ayagana ka socda la yiri hay'adda sirdoonka NISA ayaguna ku sugan isla gobolkaasi Gedo dad reer Gedo ah way dadka dhamaantood dadka ayaa wada hadlay maalmaha dhanna wada hadal ayaa u socday waxayna ka faa'iideysteen baa la yiri sida ay sheegayso warbixinaha ka soo baxay gobolka Gedo isku dhac Axmed Madoobe iyo Janan ayaamaan ka dhex taagnaa ayaa laga faa'iideystay oo Janan waa loo yeeraa waa la hadlo Cabdirashiid Janan wuxuu yiri waa ka soo baxaya waan is soo dhiibaya laakiin shuruudo ayaa doonaya markaa in aan ku soo galo gobolka Gedo waan uga mid noqdo shacabka oo aan uga mid noqdo siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta reer Gedo hadii la fuliyo waa soo dhawaanaya inkastoo shuruuduhu aysan dhamaystirnaan inta aan hayo laakiin laba ayaa la ii sheegay mid waa in uu asagu ka mid noqdo dadka wax laga weydiinayo qadiyada iyo siyaasadda gobolka Gedo in Axmed Madoobe wax laga weydiinayo asaga uu ka mid noqdo dadka wax laga weydiinayo oo xildhibaanada iyo doorashada iyo arrimaha qaybaha ka mid ah iyo siyaasadda gobolka dhan maadaama uu gobolku yahay gobol very strategic ah politically influence culus oo hadda leeyahay laba xuduudood uu haysto Soomaaliya iyo Kenya iyo arrimo badan ay maqtaana ay isku xirto wuxuu yiri marka waa in siyaasadda gobolka wax laga weydiiyaa oo aan noqdo oday reer Gedo oo aan ku soo laabto saaxadaydii ayaan ugu soo laaban karaa ama aan ugu soo biiri karaa garabka dawladda Soomaaliya wuxuu kaloo sheegay baa la yiri in lagu rajiyo gudoomiyaha degmada Doolow oo ah markaasi gurigiisii iyo hoomkiisii
magaalo yar oo waliba uu si fiican u dhisay ninka odayga ah muddo badan uu gacanta ku hayay marka uu doonayo inuu magaaladiisa ku laabto mas'uulna uu ka noqdo oo marka loo daayo inuu magaaladiisa u maamulo inta ayaa la isoo sheegay so far laakiin shuruudo kale oo badan ayaa la sheegaya oo suuqyada ku jiraan laakiin labadaas shuruudood waxa ay xaqiijiyeen mid ka mid ah gudoomiyaasha gobolka Gedo oo aan telefoonka kula hadlay waasoo aan ka mid ahayn dadkii shirka marka ama arintaasi ka shaqeynayay laakiin kor kala socday arinta ayda inta ay xaqiijiyay waxaa marka la isweydiinayaa haddii Cabdirashiid Janan uu soo dhiibo dawladda dhinaceeda ku soo biiro maxaa meesha ka soo bixi karaya ayaa la isweydiinayaa muxuu Cabdirashiid Janan ku soo kordhin karaa siyaasadda gobolka Gedo iyo Jubbaland iyo gabi ahaan mid Soomaaliya waxaan islahay saddex waxyaaloodba meesha way ka soo bixi doonaan kow waxay istaagi doonaa colaadii dabcan asagu uu waday oo dadka shacabka reer Gedo uu ku waday oo maatada uu duqeynayay uu weeraray oo waliba aan ku cambaaraynayno jeclaan lahaan hadduu soo dhiibo inuu arrintaasi raali gelin iyo magdhow ka bixiyo shacabka masaakiinta loo geystay arrintaa way istaagi doontaa oo si adag bay u istaagi doontaa labo waxaa istaagi doona faragelintii Kenya ee ku heshay Soomaaliya maadaama Cabdirashiid Janan uu ka mid ahaa lama qarinayo dumaantii soo dhiibay maaha Cabdirashiid Janan inaan dhahayo waa awliyo iyo waa nin fiican wixii uu geystay waa la og yahay hadduu soo dhiibo uu ka soo hanuunana uu mahadsan yahay waa la soo dhaweynaya laakiin wixii uu sheegay lama qarinayo Janan marka haddii uu soo dhiibo dawladda Kenya faragelintii ay ku haysay gobolka iyo Soomaaliya waxaa iska bedelaya maadaama uu ka mid ahaa dadkii ay sida adag dawladda Kenya ugu shaqeysanaysay waxaa kaloo meesha ka bixi doona maamulkan Jubbaland la yiraahdo oo boorsada Axmed Madoobe uu ku wato oo meesha uu rabo kala dago waliga ma aragtay maamul dawladeed oo boorsa nin ku wato waa mid ka Axmed Madoobe uu wato oo kale meel asagaan ahayn meeshu asagu joogo ay Jubbaland joogtaa caawa hadda Jubbaland Kismaayo ma degana ee xamar bay degan tahay hadduu Nairobi tago Nairobi degan tahay hadduu Kismaayo ku laabto Kismaayo degan tahay Jubbalandu boorsada Axmed Madoobe weeye wax kale Jubbaland la yiraahdaa ma jiraan sharci ma jiro dawladnimo ma jirto ciidan ma jiro wasiirro ma jiraan xildhibaano ma jiraan deegaan uu ka taliyaa ma jiraan cid amarkiisa yeesha ma jiraan Axmed Madoobe marka iyo Jubbaland waa una asaga arrinta marka ayaduna waxaan isleeyahay gacanta ay ka sii bixi doontaa oo way u dhamaan doontaa oo Axmed Madoobe cid dambe wax weydiin doontaa ma jirto gobol Gedo oo dambe uu ka hadli doonaana in jirin baan qiyaasaya haddii Janan uu ka soo wareego Janan ninka la yiraahdo wuxuu inta badan uu center u yahay nimanka siyaasiyiinta ee reer Gedo Axmed Madoobe daba fadhiyo Janan baa center u ah haddii Janan marka uu meesha centerka uu ka soo baxo rag badan oo Kismaayo fadhiya oo Maxamuud Sayid uu ka yahay oo dawladda Kenya dabadhilif u ah ayaan isleeyahay way ka soo caarir doonaan meesha waayo translator-kooda weeye ninkii meesha geeyo weeye ninkii meesha ku haya weeye arrinta ayadana meesha way ka bixi doontaa baan isleeyahay weli marka waxaa socda wada hadalkii nooca ahaa oo wada hadal uu albaabada u xiran yahay warbaahinta loo diiday dadka siyaasiyiinta xataa reer Gedo oo dhan ayaan markaasi aan ka warqabi karinin wax meesha ka socda markii laga reebo dad yar waxaa jira xataa dad la yiri shirka ayay ku jireen oo markii aan wacay igu yiri shirka kuma jiraan haddana kuwa kale aan wacay waxay yiraahdeen heel baa shirka ku jira taa marka waxaad fahmaysaa sida shirka uu very confidential u yahay oo arrintiisa u adag tahay inta baan kusoo koobaya baan isleeyahay dhammaantiin asxaabta Soomaaliyeed meel ba joogtaan jim baan ka imaaday oo waanba yara kululahay amarka idin rajeenayaa khayr iyo caafimaad guul baan dalkan u rajeenayaa waxaan u rajeenayaa dalkeena in tuuga iyo dabadhilifka si adag looga saaro marna ma aaminsani in loo sameeyo xun asxaana nin walba oo dalka Soomaaliya maanta dhibaato ku haya ama dhibaato u geystay cid uu rabo ha ahaade wadi salaam kooban aad sii gaarsiisaan walaalaha kale Soomaaliyeed si markaa uga faa'iideystaan anigana waxaan idin rajeenayaa guul iyo caafimaad meel ba joogtaan waxaan idin ka tagay assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh